الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ولا ليال موضوع أنه وحكوس بسيء هاي إلهي سبحانه وتعالى حدودي سي واجبات كي سي أوامر سا إلا حفظيه وقفك مؤمن كي مركو هره وإلهي إلاليه يحدودي سا مركا أنت أوسما يقفك إلهي وحبلن قاضي إنه أدون كي سدورة أو إلالن هيو وقف حرس حران أو وردي سنوي waxaa nabiga ka sugan sala allahu alay wasalam maalin maalmaha ka mid a in adeerkii ninkii dhallinyarada ahaa ee saxaabada ka mid ahaa ee faqiiha ahaa cabdullahi ibni cabbaas caalimka ahaa isagoo nebigu gaadiid saaran yahay calayhi salaatu wasalaam xagga dambe waxaa ka fadhiyey wiilkaa yar in adeerkii cabdullahi ibni cabbaas markaase wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam wiilow maanta waxaan ku barayaa kelmado arrimaan ku barayaa cusub waxaan ku baraya waxa weeye ixfad illaaha yaxfadka ilaahay xifdi oo awaamirtiisa iyo waajibaadku ku faray ilaali macsiyada iyo xumaantu ka reebayna ka tag isna markaas uu ku xifdinaya wuxuu ku yiri hadii aad qof wax weydiisanayso rabbiga isku xid isaga wax weydiiso wax walba isaga gacanta ugu jiraan waxaana ogaataa hadii ummaddu makhluuqaadka oo dhan ay isu yimaadeen siday u dhan yihiin oo ay ku tala galaan inay ku siiyaan waxaan rabbiba kuu qorin marnaba ma dhacaysa shayga inaad hesho haddaan ilaahay kuu qorin waxaa kaloo ogaataa haddii ummaddu ay isu wada timaado si ay kugu geystaan wax dhib oon alla kuu qorin si kastoo xadhig lagugu maleego ama makri iyo shirqool lagula damco marnaba waxaan alla kuu qorin inayna kugu dhacayn iyadana ku talagal marka waxa weye walaalayaal mid walba ama qof kastoo inaga mida adduunkan inta la joogo dhibaatooyin badan baa soo waajahaya xusni أما مارت ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين دباتوين فربضن بقفك سوا جهية هضيتها عبسية خوف هضيتها دقالية علاضة هضيتها محوها أمن حمو هضيتها محوها فقري هضيتها عذر هضيتها عرور الآن يعني وحياة فربضن بقفك سوا جهية ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه وحليها محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسرورها يأتيك كالأعياد يعني أدونك محن كيسي دباتوين كيسي ويفربضينهن barwaaqadiisi iyo muxuu ahaa farxadda adduunkana waxay kugu soo maraysaa sida ciidda oo kale yani ciiddu sanadkii mar bay ku soo martaa way yar tahay bil walba ciid ma aha maalin walba ciid ma aha sidaasoo kale farxadda iyo suruurku qofku in badan lama kulmayo dhibaatooyinka ka fara badan ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala wuxuu leeyahay xadiiskan ayaan aad ugu fiirsaday macnihiisa dhuuxay markaasaan la yaabay buu yiri waxaana murugale buu yiri qofku inuu jaahil ka noqdo xadiidkan iyo macnihiisa runtii xadiidkan waxaa ka muuqanaysa tarbiyad aad u weyn oo nabigu sallallahu alayhi wasallam dhalinyarada ama dadka caruurta uu u jeedinayo sababtoo ah dhalinyaradu haddii hagaagaan mujtamaca waxaa laga qiimeeyaa oo laga eegaa dhalinyarada hadday dhalinyaradu toosan yihiin mujtamacaas waa mujtamac yani saadaashiisa iyo mustaqbalkiisu uu iftiimayo jiilka yaryare haddii uu halaabo ama xumaadana oo khadka ka baydhana mujtamacaasi waa mujtamac halaagsamay ama ku daayey sababtu waxa weeye waa qaadatul-mustaqbal baa la yidhahdaayo waa dadkii berri talada qaban lahaa qofkii berri talada qaban lahaa hadduu xun yahay mujtamacaas yani waxa weeye saadaashiisa iyo mustaqbalkiisu ma fiicna nabigu sal ly slam ibn cabbaas wuxuu ku yidhi ilaahay xifdi uu ku xifdinayaa waa laba arrimood oo isku xidhan waxaa la yidhahdaa dalab iyo jaza ixfad illaaha yaxfadka ilaahay xifdi uu ku xifdin macnuhu waxa weeye haddaad xifdido wuu ku xifdinaya haddaadan xifdinina haddee waxa weeye ballanqaad ilahay kama haysatid inuu ku xifdinayo ballanqaadka ilahay ma haysatid sababtoo ah aldalabu waljaza ka shardi walmashruud sida shardiga iyo mashruudka ay isugu xidhan yihiin haddaan ku dhaho haddaad yani waxa weye waxa iyo waxaa samaysa abaalmarin baad leedahay macnaheedu waxaa ku hoos jirta haddaadan samaynin malihid marka waxaa la yidhi ilaahay xifdi isna wuu ku xifdinaya macnaheedu waxa weye haddaadan xifdiin de marka ballanqaadkii rabbi ma haysatid ballanqaadkii rabbi iyo xirsi xidhkiisii ma haysatid sidii waxay la mid tahay ilahi subxana wa tacala markuu yihi war ballankayga oofiya uufi bicahdikum wa awfuu bicahdii oofi bicahdikum ballankayga oofiya anna kiinaan oofinaya macnaheedu waxa weye haddaydaan oofinin dee ilaahay inuu inoo oofinayo wax walba markaa damaanad qaad kama haysano ama fadkuruunii xusa adkurkum waan idin xusaya way isku xidhan yihin xuduudda ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la xifdiyo nabigu sal ly slam waa tii uu lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinku faral yeelay waxyaaba farala ha dayicina xuduud iyo soohodin buu ilaahay jeexay aan la tallaabi karin ha dhaafina xuduuddaas waxyaabo idinka xarimay baa jira ha ku xadgudbin oo ha dhex gelina waxyaabo ilaahay uu ka aamuso inuu ilowsanin baa jira waxba ha baadhbaadhina waxyaabaha ilahay dadka faray walaalayaal waxaa ugu muhiimsan oo qodobada koowaad ka mid a iimaanka ama laa ilaha illa allahu muxamedun rasuulullah iyo shahaadada kadib salaada ahamiyaddeelada waxaa ku tusinaya nabigu sala alla alay wasalam markay naftu ka baxaysay dhowr shay oo dardaarmay baa jirtay markuu sakaraadku hay maalinkii u dhimanayay
dhowrkaa shay nabigu dardaarmay waxaa ka mid ah 3 shay bay ahaayeen waxaa ka mid ah markuu sakaraadku nabiga hayay calayhi salaatu wasalaam dardaaranadii uu ka tagay as-salaata wama malakat aymaanukum war salaada iyo salaada war iska jira salaada waxay gacantiinu hanatay mas'uulka ka tihiinna iska ilaaliya iyadana xaqooda nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qofkii xifdiya salaadaha oo ilaaliya waxay u noqonayaan qiyaamada nuur iyo xujo iyo nabadgelyo maalinta yawmal qiyaama Abdullah ibn Shaqiq wuxuu leeyahay radiyallahu anhu hal shay ma jiro oo saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii laga taga ay gaalnimo u arki jireen oo salaad ahayn waxay u arki jireen saxaabatu rasuulullaahi ridwaanullaahi calayhim hadii ay ka tagaan gaalnimo uu qofku ku dhacay inay tahay salaad ولذلك الله سبحانه وتعالى وحده حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حفظية صلاة حفظية بالي يعني لا يماد الشروط هذه أركان هذه سنن هذه وحيابها وبعضين آداب هذه ودن وين أضلت مادان حفظك إله سبحانه وتعالى وأدونك حفظنا يوحى كمذا إنه قفك حفظية حبنيهس حبنها جنات حفظه وحى كمذا مضحي يوحى جذيهس كشرينات حفظه علاش يوحى جذيه هذا كشرة علاش يجذيه هذا وحى كشرة أو حفظه وحى سوه زجلية إن qalbigaaga aad ka ilaaliso oo ka xifdido shahwooyinka iyo waxyaabaha nafta ay jeceshahay aad ka ilaaliso shubho iyo waxaan diin ahayn oo dadku ay diin u haystaan iyo bidcooyinka waxaana taa ka dhalanaysa qofku inuu gaaro hadduu shahwadana ka dheeraado shubhana ka dheeraado shahwadu waxa weeye waa macsiyada ay naftu jeceshahay shubhaduna waxa weeye waa bidcada iyo waxaan diin ahayn oo qofku uu diin moodo labada arrimood qofku hadduu qalbiga ka dhowro waxa ka dhalanaya sabr iyo yaqiin sababtoo hadduu qofku iska ilaaliyo waxyaabaha shahwada صبر بوهليا هذه وإسكا إلى وحيابها الشبهة أنا يقين بوهليا وأنا لبضع الرماد إلهي رهيب بني إسرائيل مركز النبي مصرعين عليه الصلاة والسلام كواحد النبي مصرهم ما يسي قضى بدي إلهي وقر قاربه كمده هذا الصبر واليقين وأنا تشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وليه وبهما تنال الإمامة في الدين إنه وقفه قامية دين وينغض أما الدين تيس إلهي أرميس أوروريو أما إلهي وقفك سما تبحيه تاسع الوقالة ولذلك بقى ليه وجعلناهم رهيب بني إسرائيل بلغش أشكيني وحن كدغنا ائمه يهدون بامرنا وغورما لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون لان الصبر وصبر يدفع الشهوات واليقين تدفع الشبهات مدح والله حفظيو iyo waxa madaxa ku hareeraysan waa inuu qofku xifdiyo arabkiisa maqalkiisa aragiisa waxaan xaraan u ahayn waxaan xalaal u ahayn uu ka xifdiyo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'uulan maqalki iyo aragi iyo qalbigi waxa soo dhawaal isweydiinaya وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وحوى الله سبحانه وتعالى تاسو رجي يضمر كيف بكو أمري نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة وحلي من يضمن لي قفك إذا ما نضغى ما بين لحيه لبدي سدان وحول حيا وعربك إنه دورة يوحن بين حمان لغوي كإلى لنهاية وما بين رجليه يوحول حيا لبدي سلوقد وفرجك إنه الزنا حمان كإلى لنهاية أضمن له الجنة جنة أنا أبلغ قاضي بالنبي صلى الله عليه وسلم taasi waa xifdiga la inaga raba inaga inaan la nimaadno ilaahay iyo waajibaadkiisa aan xifdino ma jiro wax ilaahay intuu u baahan yahay iyo dhib haysta oo laga ilaalin waa rabbul caalamiin wuxuu inooga baahan yahay ma jirto yaa ayuha naasu antumul fuqaraa ila allah wallahu huwal ghani ilaahay waa ghani inooma baahna makruuh iyo shay aan ka difaacayno oo ka ilaalinayna ma jiro laakiin waa inaga danteena iyo maslaxadeena waxaan ilaalinayna waa waajibaadka iyo wuxuu inoo diray taasi waa xifdiga ilaahay adoonka seebu ilaahay marka u xifdinaya intaasi waxay ahayd talabkii oo ahayd ixfadillaha iyo sidaad u xifdin lahayd yaxfad kadiba aymanaysa marka inuu ilaahay ku xifdiyo seebu ilaahay ku xifdin marka ilaahay subxaanahu watacaala qofkii xifdiya waajibaadkiisa wuxuu u xifdinayaa badankiisa caruurtiisa reerkiisa iyo hantidiisa walidaalika nabiga sal slam mar walba ilahay ka baryi jiray ilaah waxaan ku weydiistay cafis iyo adduun iyo aakhiraba inaad igu cafiso ilaah waxaan ku weydiistay diintayda iyo adduunyadayda inaad ii badbaadisay iyo aakhiradayda ehelkayga iyo maalkayga ilaah waxaan cawradayda astur cabsidayda iyo waxyaabahan mas-uulka ka haynay iyo aamiyeel ilaahu hor iyo gadaal iyo midig iyo bidixna allow iga badbaadi ilaahay subxaanahu watacaala xifdiga waa addoonkiisa xifdinhayo markuu addoonku ilaahay xifdiyo waxay ka dhex muuqanaysa oo ilaahay addoonku isku xidho ambiyadii ilaahay siduu u galay markay dacwada dadka ugu yeedheen ee loo hanjabay ee qaar dabka lagu tuuray ee qaar badda lagu riday ee qaar waxa weeye la dhibay ee qaar la dilay ee qaar la dhagaxyeeyey sidoo lagu gargaaray bal u fiirsan nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam yani waxa weye qiso dheer baahidoo aad iyo aad qur-aanku uga warramay markii asnaamtoodii intay meel ciid iyo dabaaldeg ay lahaayeen ay u baxeen nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waatuu ka hadhay nin yaroo dhallinyarana uu ahaa wuxuu damcay inuu balaan u dego oo uu fahansiiyey ilaahyadan ay caabudayaan wax jira inayn ahayn markaasaa nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ilaahyadii ay caabudayeen iyo qoryihii iyo sanamkii ay caabudayeen buu jajabiyey faaskii uu ku jajabiyeyna kii ugu weynaa asnaamta ayuu garabka u saaray markay soo noqdeen bay arkeen wixii oo dhan oo jajaban markaasaa waxay dhaheen war asnaamtan iyo ilaahyadanadii yaa sidan u galay
inuu isagu ka hadhay dabaaldegyo saaka una soo bixinna way ogaa inuu ku marmarsooday waan xanuunsanahay faqaala innii saqiim waan xanuunsanahay buu yidhi isagu saasuu ku marmarsooday markay soo laabteen ay dheheen war sanamyada sidan u galayna wuxuu yidhi yani waxa weeye iyaga weydiiya in kaanuu yantiquun hadday wax idinla hadlay yihiin nabi ibraahim alayhi salatu wasalaam akhiiran sheeko yani qur-aanku aad buu uga warramay waa tii ay ogaadeen inuu isaga yahay isna qirtay markii dambe ay dabka ku rideen dabka markii lagu tuuray dee rabbi baa u joogay subxaanahu wa tacaala ibnu cabaas wuxuu leeyahay radia allahu canhu kalaamu ibraahim wuxuu ahaa hadalkii ugu dambeeyey uu yidhaahdo xasbuna allahu wa nicma alwakiil ereygaas yidhi ilaahay baan tala saartay dabkii baa lagu tuuray dabku dee ilaahay subxana wa tacaala awooddiisu wax ku kulaylinhaya ilaahay baa u yeelay awooddan hadduu ka siibo waxa ma kulaylinaya markaasa ilahay wuxuu yidhi yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim ibraahim badbaadi baa la yidhi qabow iyo janno u noqo nebi yuusuf baa ilahay xifdiyey walaalihii markay intay u tashadeen mu'aamarada iyo shirqoolka u dejiyeen ceelka salka loo dhigay ilahay subxana wa tacala si u rabeeyey ceelku uga soo saaray iyo safarkii waan wada garanayna nebi yuunus yaa markii qoomkiisii ay beeniyeen niman ilaa 100 kun iyo dheeraada ayaa loo diray markay beeniyeen isagoon ilaahay ribood ku celinin ayuu iskaga dhex baxay uu is yidhi kolley cadaab baa kuwan kusoo degaya ka cararo ka dhex baxay ilaahayna umuna sheegin arrintaa ilaah way beeniyeen waa bas maxaan sameeyaa muuna dhehen waatuu markabka raacay markabkii waatuu istaagay badda intii lagu tuuray nebi yuunus nimankii safarka ahaa qisadii qur-aanku ka warramay markii fasaahama fakana min almudxadiin faltaqamahu lxuutu wahuwa muliim falowlaa annahu kana min almusabbixiina lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcahuun markii lagu tuuray halkaasuu ka tasbiixsaday fanaadaa fi dulumaat isagoo ku jira baddii oo kalluunka calooshiisii ku jira oo baddiina salka uu kalluunka la galay hal mar buu liqay xayawaan iska weynaaday oo badda ku jira halkiibu ka dhawaaqay marka laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alظaalimiin qur-aankaa soo guuriyey oo ka warramay qaabkii uu u dhawaaqay ee ilahay ugu qayshaday ilaahay waan gardarra waan khaldamay inii kuntu min alظaalimiin adaa xumaan kafo rabbi oo badbaadi halkii markuu ka dhawaaqay yaa ilahi subxana fanabadnaahu bilcaraa'i wa huwa saqiim halkii baa marka badda lagaga soo tuuray o ilahi subxana wa tacala uu ku badbaadiyey yani waxay leeyihin culimmadu haddii markaa uunan ahayn qof amarka ilaahay ku dhaqmo alla ku xidhan maalinkaa badbaadada mauna helan taasuu u baxsaday cibaadadiisii hore u baxsaday walidaalika ilahay baa wuxuu leeyahay falowlaa annahu kana min almusabbixiina hadduuna ahayn kuwo alla ku xidhan dadka ilaahay u hoggaansamay ilaahay ku xidhan ee tasbiixsaday alla caabudo hadduuna ahayn lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcahuun kalluunka calooshiisa wuxuu ku jiri lahaa ilaa iyo maalinta yowm alqiyaama taasuu ku fakaday marka qofku aad u aayaysa cibaadadii iyo waxaad hormarsato marun baad u baxsan mar baad u baxsanaysa nebi muuse calayhi salaatu wasalaam qaabka ilaahay kusoo koriyey ee qur-aanku inooga sheekeeyey gurigu kusoo dhex koray oo garanaysa nin reer bani israa'iil mayo wax kale baan u dan lahayn inuu dilo oo fircoon la yidhahdo ilahnimo sheegtay iyo waxa weeye oo ilaahay uu damacsan yahay sababtiisa fircoon ba in lagu halaagaba bal oga waad intii kale uu ilaahay u dilay ilaahay qadarka kii isaga halaagi lahaana gurigiisa buu kusoo koray soo wax lala yaaba ma yani waa gariib waa wax cajiiba in fircoon uu wiilashii reer bani israa'iil oo dhanna ka dhigo kii uu ka baqayeyna gurigiisi isagu raashinkiisii iyo shaqadii uu qabanayay gurigiisii iyo yani sariirtiisii uu kusoo dhex koro waa wax yani ilaahay subxaanahu wa tacala markuu wax samaynhayo nina kala tashan mayo iyo qaabka u samaynhayo waa wax cajiibo yani qaabkaas u badbaadiyo isagan ilaahay markuu adiga ku badbaadiyo wanaagga aad leedahay haddaad adigu fiican tahay carruurtaada u aayayso ilaahay laga yaaba inuu ku badbaadiyo carruurtaada u aayayso waad garanaysaa labadii wiil nebi khadir iyo muuse calayhim assalaam markii ay isa soo raaceen reerkii ay marti gelin waayeen ee labada wiila yaryar ee yani waxa weye aabbahood uu gidaarka ama derbiga ugu hoos aasay xoolaha gidaarkii sii dhacaya markuu toosiyey khadir ee nebi muuse ku yidhi war reerkan ina marti gelin waaye maxaad wax ugu hagaajinaysaa guryahooda ugu toosinaysaa ka dumeeya markii dambe uga sheekeynayay muxuu ku cileeyey wuxuu ku cileeyey wa kaana abuuhumaa saalixan nin khiyaaraa dhalay buu oo ilahay ku xidhan wiilashan yaryar nin wanaagsan baa dhalay buu marka wanaaggaaga carruurtaada u baxsan doonta carruurtaada u baxsan doonta carruurtaada iska tahay kuwaad awow u tahay yaa u baxsan doonta sida ilaahay subxaana wa tacaala suuratu aal cimraan uu inooga warramay imraatu cimraan maryamo markay dhalaysay yaa waxay tidhi ilaahayow wa innii uciiduhaa bika gabadhan adaan ku magan gelin waatay dhashay waa carruurteedii waduriyata waxay sii dhashana waa nebi ciise calayhi salaatu wasalaam waxay sii dhashana ilaahayow adaan ku magan gelinhayaa bay tiri adiga iyada iyo waxay sii dhashaba allow adaan kugu xidhay adaan ku hoosgeeyey marka carruurtaada awow tafiirtaada u aayas tafiirtaada u aayas yani waxa weeye taasoo kale waa waxyaabo dhaco awliyada ilahi subxana wa tacala alla uu ku sharfo oo uu ku ilaaliyo oo uu ku xifdiyo oo uu ku dhowro waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam nin mawlihiisa ah oo saxaabadii kamid ah oo safiina la dhihi jiray sida bisanad saxiix kusoo aroortay yaa maalin maalmaha ka mid a waqti dambe isagoo bad la socda dooni la socda yuu baddi ka dhacay doontii baa dildilaacday ninba suu ku badbaadi karay buu ku badbaaday alwaax nin qabsaday iyo nin bir ku dhagay iyo nin wax sameeyaba nin walba siduu ku fakan karay buu ku fakaday siduu ninkii u soo socday
وحوي وحو قعنت إلهي سبحانه وتعالى أقول خشبة الواح يسوء لو رجع موجود وقول حدا بالنا هي يا مال يرو قد أو جزيرة ده أو برج أكتيس أبو موجود كساطورتي ماشي مركي كساطورتي برج هيد ونكبي حكر المال يرو قرفة أما قد ير أو وين أو قضن يا لباح بس أكل استاج لباح مركو كسر دقاقي وحولي يا أبو الحارث وأكون يد اللباح أبو الحارث هو وحنا هيبود السفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم السفينة موليه النبي قال حيوان كان وين أنا لها ذكرين لكن وحنا لنا هاي إم بدن بيفهميا وإلهي فهنسينيا سفينة أنا هاي موليه النبي عليه الصلاة والسلام مركزه وحوي اللباح أنتو كسر دقاقي أو فهمي نبي محمد موليه سبحان هيب يا تشيني أما أدنك أنتو عيال كي قلي اللباح يهلك كذا سطورة وهركعي وضد المدينة اللي قاعد يشرب بكل ذي أنتم ماذا حاول جنديه بكسرناه ووحيابا إلهي سبحانه وتعالى أي دعي كرتو حيوانات كمؤذية بالطبع أضامة الربا إنه إلهي أذيك كوا سخيره أو كاغر كوا أذيك كوا أذيك هذا إلهي أذوق إسكو حلو إلهي إلى رسول إلهي دورته ووحيابها أذكبت بهذه كرتة إسكو حفظين كرتة بكمتها نبي يوسف عليه الصلاة والسلام وحيابها وحكم ذا وحوي إلهي سبحانه وتعالى وكوا حفظين هيو أو كوا إلالين هيو نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وذكرنا إنسان هذه إلهي أذكر حدا حتى معصي حمان فربطين إن لقى حجابي ناقتي دمع النبي يوسف حمان تلا دمع ذي ويرتي امرأة العزيزة هي وأتي الله سبحانه وتعالى نبي الله يوسف وكبد بادية وكأسطري كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين يعني سيدا النبي يوسف عليه الصلاة والسلام أن كبد باديني وحمانتي وحي أن كبد باديني بقى لي هي سببته مدة عضو عبادة أنك نوبر احتراء أيها أبو الله سبحانه وتعالى marka taasi waxa way walaalayaal hadaad ilaahay isku xidho isaga ku arsaaqaya hadaad ilaahay isku xidho isaga ku xifdinaya ilaahay hadaad isku xidho dib kasto la kulanta aakhirka waad baxsanaysa ilaahay baa ku fakinaya ku badbaadinaya waayo ilaahay baa wuxuu leeyahay waman yattaqillaha qofkii Allah ka baqa yaj'al lahu makhrajan meel uu ka baxo dibka uu uga baxo Allah siinaya ويرزقه من حيث لا يحتسب صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه فإن الله أمرنا بذلك حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما